السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلام الأمان أخيارت شرفت له صاحب القالقة reer dabiib reer dadaalsi gudsi gaarsee layahay mala fiican yahay mala nabad qabaa ilaahay idankiisa waa idin rajeyna meel kastoo adduunka joogtaan iyo soo dhawaada noo soo dhawaada oo khayr iyo farxad la soo dhawaada isku soo noqod kale oo wanaagsan. dhiirigelintan waa ka kooban tahay sidii adduunka maasha allah. arrinkan waa arrin aan inta badan ka gaabsado ka leexleexdo waayo waa arrin Soomaali ee u taqaano shul iyo shal. marka maadaama wuxuu ay yihiin shul iyo shal ani waa ka gaagaabsadaa, laakiin way jirtaa dad sameey, dad weliba ammaano, dad maasha allah xataa duceynayo dhahayo arrinkaas markaan sameeyey ee ii kala kacday, iyo dad dhahayo inaa lillaah arrinkaas markaan sameeyey kadib waa ii dhamaatay zam korantadii iga tagtay. maxaa waaye arrinkaas? waa gabdhaha isticmaalo tekniiga loo yaqaano gubniinka hoosta ama macdanta. dadaa dhaho markii intaana sameyn ka hor waxay igu soo noqnoqon jiray infection, waxay xanuuni jiray dhabarka, waxaa la maroojin jiray mindhiciraha. gubniinka markaa sameeyey ka bacdi bof wax walba iga dul tageen. alxamdulilah caadi ii saxantay. dad waxay dhahaan horaaba uur ka qaaday gabdhahaasa, gabdhana waxay dhahaan markaa sameeyey waaba baanan waaye, meesha way ifafashtay. dhibaatadii adduunka hadda dhibaatadan kala kulmay inaba caadi maaha. dhiigayga wuu soo noqnoqdaa, waagi hore wuu ii saxsanaa, dhiigga wuu iga guuray. dhaqaatiirta waxay leeyihin ma naqaano wax kaa qaldan, maxaa samaysay. dad way dhahaan wuu nooga daray ama wuu iiga daray, dadna waxay dhahaan alxamdulilah caafimaad markaasaa dhadhamiyey. ani shaqsi ahaan maamuwaana maxaan ka qabaa arrinkaa. dumar ahaan horta waxaan weligii aniguba sameeye maaha, waa laygula taliyey, waa laygu dhiirigeliyey, laakiin ma sameynin because of fulaynimo. fulaynimo nafta oraday kugu aamintaa. warningkana waa laysiiyey shul iyo shal. warningka shul iyo shal waa laysiiyey, ama waa kuu kala kace ama waa ka qaraabe. marka bima morta waa samey waaye, baktiyo nasiib maaha, nafteedana waa baqday. so yes, aniga shaqsi ahaanteedana ma siboodaa, dawad ogtiin xaggaas waa idinka siboodaa dhiirigelinteeda, laakiin waxaa jira wax kaloo dabiici oo looga maarmi karo. gabdhaha ay dhahaa maama maxaan sameeyaa, waa laygula taliyey oo basashinan beri aniguba maraayo maanta, aniga makaa siboodi kari habaryataas. sababta oo ah hadday zam isla dhahaan wax maamuwaana adaa igula taliya imaaneyso, talawaatii ilaahay maka bixi kari taas. hadday kuu kala kacdo oo cawiye wiil cawiye gabar maasha allah dhacdhac ay kuu noqoto beautiful, laakiin wixii haddayba iska yihiin ku fiiri nasiibkaaga. arrinkana uu yahay xibintaada taranka iyo arrinkuu muhiima ama noo wada muhiima, maka bixi kari inaan kugu dhiirageliyo. marka good luck inta ku dhaqaaqi doonto, inta ka baqanayso dhammaantiin waxaa idin leeyahay good luck. laakiin arrinkaas aniga maradii ka banaanka ya good luck, laakiin waa idin soo duceynaa insha allahu khayr. arrimaha aan ka gaagaabsadana waxbaa jiro, jeekal koosaya waxbaa jiro. fulinnimada marbay fiican tahay, waxyaabaha naftaada halista u keenaa ka fiirsa weligaa insha allahu khayr. salaamu calaykum.